waxaa maanta si weyn looga xusay sanad guurada 12aad ee ka soo wareegtay madaxbannaanida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la xuso sanad kasta 18 bisha May. Xuskaas oo ay ka soo qayb galaan madaxda ciidamada shacabka iyo wafuud caalamiya. jaaliyada Bakistaaniyiinta ee ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dareenka la qaybsaday oo si weyn ula dabaaldegay Jamhuuriyadda Soomaaliland. xubno ka mid ah jaaliyada Bakistaaniyiinta ee ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka warramaya dareenkooda ku aadan maalinta qarannimada 18 May ayaa sheegay inay dareenka la qaybsanayaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. 12 sano oo horumar midnimo iyo nabad waxaan arkaynaa horumarkeeda iyo wanaageeda aad baan u hamleynaa aad baan u faraxsanahay. The feelings we have today was very nice. It was excellent, and the independence celebration which we did here, mashallah. The last thing I can say is I really like this country, the people of this country, and thank you very much for giving us your love. iyagoo sidoo kale ka warramay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Pakistan.